deegaankii awowga iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadeeda lama soo koobi karo geelayga baa la guddoonsiiyay alxamdulillah waxay ahayd madal farxadeed oo nooceedu ku cusub yahay guud ahaan geeyga Soomaalida goob kulmisay odayada labada arda ee ka soo kala jeedaan lamaanaha dhawaan iscalmaday ee kala fanaanada caanka safiyo Tusmo iyo saygeeda ganacsade Cabdullaahi Yuusuf Aare waana dooxada taariikhiga ee Harawa ee magaalada Arabi halkaasi oo maanta si rasmi ah fanaanada safiyo Tusmo loo guddoonsiiyay 120 geela oo ahayd meherkeyga uu dhawaan ku mehersaday saygeeda Cabdullaahi Yuusuf Aare madashni farxadeed ayaa waxa ugu horeen ka hadlay maxamuud aare miicaad oo ka socday dhinaca sayga safiyo Tusmo waxana uu si sharaf iyo milga ku dheehan tahay 120 geel ugu wareejiyay iga Xuseen oo isaguna geelani u gudoomay gabadhooda safiyo Tusmo oo dhinkeeda ka socday waa kuwan iyagoo geelaasi kala gudoomaya hadallo kala duwan oo mahadnaq u badanna goobtaasi ka soo jeedinaya anigoo maxamuud aare miicaad ahna Cabdullaahi Yuusuf Aare adeerkii geeli 120ka halaad ahaayeen gabadhii Tusmo ku meherinay ayaan halkan guddoonsiinaya gacalkii lahaa yaan halkan gacal oo geelna waa inaad iga guddoontaan 120kii halaad ba halkan aan idin marinaya imika iyagoo magacadoonidiina waliba aan idin tirinayo ya geelay waa inaad guddoontaan waan guddoonay gacal dhalinyaro waa yeelba saaxiibkii dhawal oo gabadha maalintii la meherinayeen goobjoog ka ahaa duqaydii gabadha u joogtay meherkeedii ahaa oo maalintii yiri codkiis fagaara aan joogay oo meher inta leey ka dhacwayay kow laakiin maasha lagu bixin doonana waanu joogi doonaa yiri nasiib darro arrin aw yeeshay maanta ugu suuro gali weeday inuu yimaado anaana geeli bixiyay anaana isagii halkiisii ka wakiilaha waliba wakiil ugu ahaanaya waan guddoonay geelii Tusmo lagu meheriyay 120kii halaad ehelkiina waan guddoonsiino oo iyaga u guddoomay waligii gabadha u guddoomay intaay waa inta marka koobaad waan salaamay hadde boqorkii iyo boqoradda waa aroos farxad badan la weeyaan aroos farxad badan la weeyaan Soomaalida dhaqan baa uma ahayn yani 120 halaad oo gabadh lagu meheriyo dhaqan baa uma ahayn waa shay cusub farxad daraaddeed weey anigoo iga Bashiir-Elmi ama kaariga degmada Harawa la talinta nabadgelyada marka yani arrintaasi waa arrin culus oo sharaf iyo wanaag leh waanan ka guddoomaynaa waanan guddoonay sidoo kale waxa isaguna goobtaasi goobjoog ahaa Sheekh Cilmi Naxwi oo isagu ahaa qaadiga ama sheekhi Cabdullaahi Yuusuf Aare u meheriyay marwadiisa safiyo Tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweeyay geelini maanta kala guddoomiyeen labada arday ka soo kala jeedaan lamaanahani dhawaan iscalmaday isagoo sidoo kale halkaasi ka xusay in 20 geel oo kamid ahaa geela maanta la guddoonsiiyay safiyo Tusmo ay ugu deeqdeen maskiid dhismihiisu ka socdo deegaanka Arabi waxana uu yiri anta sida Xaaji Maxamuud sheegay halkan geelii safiyo Tusmo lagu meheriyay meherkeyga ahaa 120kii geel ahaa ayaa lagu guddoomay oo lagu kala wareegay cidii maarksa lahaydna ay sida u guddoontay waxaan anigu ku darayaa oo safiyo Tusmo waxay sheegtay masaajid baa ka socda magaaladan Arabi masaajidkii ugu weynaa ee maarksa centerka ku yaalay masjid jaamaca ahaa waa la dhisayaa dhismaha ka socda safiyo Tusmo waxay sheegtay 20 geela inay ugu deeqday dhismaha masaajidka oo kamid ah 120ka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka aqbalo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii ku dayasho mudan waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay in dhismaha masaajidka halka ka socdana aad ka qayb qaadato oo meherkaagii qayb kamid ah aad ku bixiso intaasaan ku daray aad iyo aad baad mahadsantii kuma ekeynta soo galiya balse waxa madashani farxadeed ku sugnaa odayaal ka soo jeeda deegaankaasi oo iyagu markhaati ka ahaa geele maanta ay kala guddoomiyeen labadan ardaa waxana haloodii kamid ahaa halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo maxamed Cismaan Yuusuf oo qabiilahan marka la sheegana Makaylere oo Makaayila inaan dooxa rukaysan lagu guddoonsiiyay ehelkii ayaan goobjoog ka ahayn sidaasaan cadeynaynaa in 120ka loogu midashay xay ahaayeen oo guddoonsiiyay maxamuud aare xaaji maxamuud aare ugu dambeyntii waxa goobtaasi ka hadashay fanaanada caanka safiyo Tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweysay in maanta dooxada taariikhiga Harawa lagu guddoonsiiyo 120 geela oo ahayd meherkeeda waxana ay tiri maanta waxa Ilaahay mahadi ah inaan joogo gurigii hooyaday
beerihii abtiyaashay abtigay maxamuud aarami cad hooyadii walaalkeed oo maanta garabkayga taagan geelaygina maanta isagoo guddoonsiiyey halkani waa dhulkan anoo yar ku ciyaari jiray harawa waa meel hodana oo ah meeshaan ku koray geedahan yar gadaashooda hooyaday ku aasan tahay allah u naxariiste waa hoomkaygii waa waddankaygii waxa weeyaan deegaankii abtiyaashay maanta aniga farxad iyo xasuus aan la soo koobi karin ayay tahay caruurnimadeedii baan xasuustaa hooyaday macaan baan xasuustaa deegaankii awowgay iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadeeda lama soo koobi karo geelaygii baa la guddoonsiiyey alxamdulillaah abtigay macaan hooyaday walaalkeedu maanta ilaahay igu simay isagoo caafimaad qaba inaanu saaka boorama ka soo wada 120 halaadna gacanta iga saaray alxamdulillaah ummadda Soomaaliyeed fiidihan daawan doontana waxaanu leenahay waad mahadsantihiin waa Mustafa Caraale dooxada Harawe ee magaalada Arabi